marka wasaaradda waxbarasho min fadlikum bilis waxayna ku codsananaa haddaan nahay ardada waxbarashada gobolka Mudug aad noo sheegtaan inay gaabka fursadda aan ku soo kaabi lahayn ama teemka waxbarashada aad dib noogu qaadaan gadaal waxme oo muddo bil ah ama asbuuciya aan ku weyn waxbarashadii laakiin maanta ilaahay baa mahad iska leh iskuulkeena oo furmay maalintii waxbarashaduna hadda si toos ah u socotaa sidoo hore ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu soo dagaalkii oo ay saan ugu soo socoto sida ogsoontiin gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxa ka dhacay xoogaa aqalooyinkaasna waxa iska hayaan wax iska dhowr maalmood iyo dhowr bilood socday horta waxa ugu soo jeedinaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Mudug in ay si gaar ah uga shaqeeyaan nabadda gobolka Mudug marka waxaan naga ka codsanaynaa guddoonka waxbarashada gobolka Mudug iyo wasaaradda waxbarashada in il gaar ah ku fiiriso qaybaha kala duwan ee gobolka Mudug ardayda ka qaxday waxaan wasaaradda u gudbinaynaa oo cadeer waliba ugu sheegaynaa anaga reer Gaalkacyo hadaan nahay ama guud ahaanba gobolka Mudug waxa saameysay dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo sidaas awgeed waxaan u dhihi lahayn wasaaradda iyo maamulka iyo gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan cid ku shaqale ama dadka mas'uuliyiinta ah inay tixgeliyaan oo codsigayga tixgeliyaan oo ay ogaadaan carqalada iyo rabshadaha dhacay sida awgeed ay 2 sano marayna oo gaab weyn naga soo galay sanad dugsiyeedkii ama silbiskii bilood oo dhow aan ahayn arday yani walaad ku jirta yani qadarta ilaahay baa iska leh wax walba ay yihiin qadar qiimo leh uga codsanayna in ay taageero weyn siiso aysan nagala mid digin ardada labadoodaas bilood si rasmi u qaadanayay ilaa low level ilaa high level gobolka Mudug in ay waxbarashada sanad dugsiyeedka imtixaamaadka noo sheegaan in timekiisi la qaadayo iyo in anaga wax loogu dirin sababtoo ah gaab baan ugu jira aan soo koobi karin xataa hadii la isdhaho hadirtaan dadaal hala galo ilaa ma aha dadaalka in macallimiinta iyo ardayda si kasta ay u dadaalaan inay soo